oo dalka Soomaaliya magacaygu waa Daawud Xalan Faarax waxaan ka mid ahay dadkii aqoonyahanka Soomaaliyeed oo ka soo baxay jaamacadda Lafoole waxaan jeclahay inaan ka hadlo hay'adaha ama shirkadaha ama dadka shakhsiyaadka ama oo caalamka macnaha dhibaatada Soomaaliya dadka ku haya guud ahaan iyo gaar ahaan marka hadda waxaan rabaa qodobka koobaad hadda inaan horumar shirkadda leeyahay Dahabshiil baa ka mid ah marka insha Allah sidaan ay noqonaysaa baato ku haya kuwaas oo dana gaara wata waxaa ka mid ah tusaale hadda soo qaadanaya shirkadda la yiraahdo Dahabshiil waagi hore waxaa la dhihi jiray Dhiigshiil waxay keeni jirtay dalka Soomaaliya waxyaabo dhacay oo expire sida daawooyinka iyo wixii la mid ah waxay dhoofin jirtay waxay keeni jirtay sawirada Soomaaliya tusaale ahaan dahab bay ka qaadayeen dalka Soomaaliya markay dahab ka qaato Hindiya ama wadamada kale ay keeni jirtay waxaan soo joogay waxay keeni jirtay sawirro waxay keentay filmaan Hindiya dahabka dalka Soomaaliya oo dhaqaalaha u ahaana way qaadtay waxay qaadi jirtay tusitua ku qotorban ku qaadi jirtay xoolaha dhediga dalka Soomaaliya oo lagu qaban jiray dagaalamada sida geela ariga looda digaagta waxyaabaha noocaas oo dalka Soomaaliya ka mamnuuc ah in la qaado oo dibadda loo dhoofiyo ee geyn jirtay Dhiigshiil baa la jiray wala dagaalam jiray kacaanka dawladda maxaa fiican bare wala dagaalam jiray maanta waxay xor u noqotay waxyaabihii laga dagaalam jirtay inay waxay xor noqotay inay maanta xor inay u tahay oo ama dawladda shisheeye ama kuwa dariska ama dawladda dalka Soomaaliya ama hay'ado gaar ah oo wax la dagaalamaya la arag dalka Soomaaliya ayaga hadda madaxweyne ka ah hadda markii la fiiriyo ama dawladba ka ah ayagoo aan qorana cid dadka Soomaaliyeed aanu naxaynin wadanka Soomaaliya macdan buu leeyahay dhaqaale uu leeyahay ama birahaada ama miyahaada way qaadaan wax malaayacno keenan anigu waxaan ka mid ahay dadka Soomaaliyeed oo adaal ku soo noqon yahay dhaqaale xumada iyo adaal ku shaqalaanta ay ku timi dalka Soomaaliya maalmaha ka mid ah waxaan shaqaan u baaraanay Dahabshiil shirkadda Dahabshiil baaga mudaanahay waxaan u baahanahay shaqo aan shaqadan markaan u baahanahay maxay tahay waxaan ka waardiyo dadka waardiyaha oo Dahabshiil lagu daro waxaa la yaata qabiilka ta Somaliland waata ma yabaan Somaliland ma nin Soomaaliya oo Islaam ah shaqan u baahan waxaa lagu yiri marka haddaan Somaliland ahayn oo jamaadii SNM rag ka soo halgamay oo faqash kala dagaalamay aadan ka mid ahayn ama taageero aadan ahayn ama haddaan ahayn ma lagu siinayo runtii aad baan uga argay arintaas waxay u noqotay wax la yaab leh shirkadan oo shaqeynaysa dalka Soomaaliya joogto waxay kaloo tacaddi ku tahay dadka markay u doonayaan markay u doonayaan qof lacag loo keeno dadka way ku daahaan uma sheegaan 10 bari 20 bari kadib ayaa laga yaabaa qofka soo murmaayo u ag taagan yahay maalba u dacwoonayo oo soo noqo leeyahay maalinkaas kadib inay siiyaan lacagti qofka waxay sameeyaan marka waxa weeyaan waa cunsuriyad waxaan leeyahay marka walaalayaalow Soomaaliya waa Soomaaliya shanta Soomaaliya sida Djibouti Soomaali galbeed NFD koonfur waqooyi waa isku hooyo isku aabo waa walaalo waa isku diin waa isku diir hal iska daayaan leeyahay waxyaabaha noocaas runtii Soomaaliya ma ay rabto shirkadda Dahabshiil markaan eegay ama shirkado kaleeto markaan fiirsay ma rabaan inay Soomaaliya ka dhalato dawlad sababtu waxa weeye danahooda gaarka ay ku waayeen waxaad moodaa marka in hadaal ku soo xagga nabadgelyada anke dadka Soomaaliyeedka oo nabadiidka in ay xiriir la leeyihiin bal moodaaba waxa la ii sheegay anke dadka qaar ka sheegeen in dadka nabadiidka in xiriir ay la leeyihiin oo labadii qof oo Soomaaliya soo timaada oo Soomaalinimo ama diin ama calan ama dad ama midna Soomaaliyeed ka hadla waxaad moodaa hadaal ku soo waxa la ii sheegay in ay ogoleen oo ay wala dhaqmaan maartay siyaasadooda si danahooda waxa weeye walaalayaal waxaan leeyahay shirkadda Dahabshiil iyo shirkadaha kale mid ah war Ilaahay ka cabsada war Soomaalida ka cabsada war bini'aadamada ka cabsada war dadkiina u nax war waxaan nuxur male aakhirka Soomaaliya noqon doonta nabad baa la heli doonaa Soomaaliya yaa shaqalaan baa ku dhacay walaalayaal war waardiye kaliya war waashman yaa tahay baa leeyahay mar haddaan Somaliland ahayn ama SNM u halgamin ma ku siinayna xagee waxaas ka raqmaa dad Soomaaliya waa Soomaali qof kasta Soomaaliya meel kasta joogay
waxaa lacagta lagu soo diraa oo ay gafanaha ku noqdeen oo ay ku dhargeen oo ay ku ladnaadeen oo ay ku heerkaas ay ku gaareen waa burburka Soomaaliya qof kasta Soomaaliya qabiil meege dahabsiil u soo dhiibtaa waxaan marka ku talinayaa inay wax ka bedelaan wixii lamida dadka Soomaaliyeed dibadaha ka imaanaya ama lacagaha bangiga ka furanaya ama account ka furanaya oo wax ku xaweelanaya ama qalabka dhismaha sida NGO-yada wakiilanaya inay ka fiirsadaan waxa dalka Soomaaliya dadka Soodanta u ah dadka Soomaaliya dadka Soomaaliya kala tuuraya kala fogeynaya oo halkaas ka raadinaya macaash ka raadinaya hadaa la ku samagulay burburka iyo dulnimada iyo baaba ya dadka ka raadinaya waxaan leeyahay walaalayaal wixiina ya aakhira wala su'aalaya ka daayaan le Soomaalnimada qaban doonta walaalnimada qaban doonta bini'aadanimada qaban islaamnimada qaban doonta ma fahmaysa halka ka carartay dibad baa tagtay kuwa dibadda tagtay dhibaatada tagtay oo dibadda u tagtay oo Mareykan u tagtay oo Ingiriis oo qurba joogtay oo barfu u tagtay fishilinkii aad ku soo xamaashay ya inaad qof siiso oo dadka lagu dhibaateeyo oo dad lagu gubo oo hadaal ku soo ya war maxaas wax wanaagsan ma waxaan leeyahay ka fiirsada halaga fiirsado. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.